Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Taariikhda dunida waxaa soo maray isku dayo shirqool oo qaarkood lagu guuleystay, qaarka kalena fashilmeen oo lala seegay halkii lala doonayay, kuwaas oo lagu tilmaameedsaday madaxda caanka ah ee dunida soo martay. Taariikhda waxaa soo maray shirqoollo loo maleegay siyaasiyiin, madax, ganacsato iyo dad caan ah oo qaar lagu guuleystay qaarka kalena lagu guuldareystay. Taariikhyahanadu waxay soo wariyaan qisadii shirqool uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee dalka Masar, Jamaal Cabdi Naasir, oo in badan shucuubta Carbeed ay u yaqaanaan geesiga qowmiyadda Carbeed iyo cadowgii adkaa ee Yuhuudda. Taasi waxay keentay marar badan in la isku dayo in shirqool siyaasadeed lagu qaarijiyo Jamaal Cabdi Naasir oo waqtigiisii uu xukunka hayay in badan oo shucuubta Carbeed jeclaayeen, kuwo kalena ay necbaayeen adkaanshihiisa awgeed. 6 Oktoobar sanada 1954, Jamaal Cabdi Naasir ayaa khudbad ka jeedinayay idaacadda dalka Masar oo si toos ah khudbadiisa shacabka u dhageysanayeen, asiga oo ku sugnaa barxadda weyn ee Al-Manshiyah ee magaalada Alexandria ee dalka Masar. Khudbadaas oo ku saabsaneyd dabaaldegga ugu jirtay Masar bixitaanka ciidamada Ingiriiska ay ka baxeen dalka Masar, halkaas oo si kedis ah Jamaal Cabdi Naasir rasaas loogu furay, waxaana ku riday nin lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Latiif oo xubin ka ahaa xarakada Islaamiga ee Ikhwaanul Muslimiin oo Masar ka aas-aasantay dunidana ku faaftay. Waxaa Maxamuud Cabdi Latiif madaxweynaha ku riday 7 xabo oo rasaas ah oo aanan mid kaliya haleelin hadafkeedii. Goobtii uu khudbadda ka jeedinayay Jamaal Cabdi Naasir oo dad badan ku xusuusanayeen waxaa mar kaliya dhacday argagax iyo kala yaac iyo xaalad fowdo ah, laakiin Jamaal Cabdi Naasir waxa uu ku qeyliyay cod dheer oo uu shacabka ugu baaqay in ay isdejiyaan, xaaladana degenaansho ku dabaalaan. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisii uu ku dhawaaqay: qof kastaa halkiisa ha joogo, ha dhawaaqina, isdejiya, warragow isdejiya, oo mid kastaa halkiisa ha istaago. Noloshayda idinka ayaan idiin huray, dhiigayga ayaan idiin furay, waxaan u noolahay dartiin, waxaan u dhiman doonaa dartiin, waxaan u noolaan doonaa ama aan u dhiman doonaa xornimada iyo sharaftiina. Haddii ay waajib tahay in Jamaal Cabdi Naasir dhinto, waxaa idinka doonayaa in uu mid kasta idinka mid ah noqdo Jamaal oo kale. Waxaan u noolahay in aan dartiina naftayda u bixiyo, dalkaygana naftayda u hibeeyo. Isku daygii dil ee lala doonayay in lagu qaarijiyo Jamaal Cabdi Naasir ayaa meeshaas ku fashilmay. Intaa kadib, Jamaal Cabdi Naasir waxa uu amray mid ka mid ah ololayaashiisii ugu cuslaa, ugu arxanka darnaa ee ugu adkaa ee lagu eego dadka mucaaradka ku ahaa, gaar ahaan ururkii Ikhwaanka oo isku dayay inay dilaan, oo ugu horeynba cadaadis ku hayay. Waxaa la xiray kumanaan qof oo ay u badan yihiin siyaasiyiin mucaarad ah oo ku abtirsada Ikhwaanka. Waxaa xilka laga qaaday ku dhawaad 140 sargaal oo u janjeeray dhinaca madaxweynihii maqaarsaarka ahaa ee Maxamed Najiib. 8 qofood oo ka mid ah hoggaanka Ikhwaanka ayaa lagu xukumay dil daldalaad ah. Waxaa xilka laga qaaday Maxamed Najiib oo waqtigaas ahaa madaxweyne maqaarsaar ah. In badan waxaa loo taxaabay xabsiyada, qaar badanna waxaa lagu qaarajiyay xukun la'aan. Intaa kadib, Jamaal Cabdi Naasir waxa uu si muran la'aan ah u noqday madaxweynaha dalka Masar, asigoo gacan bir ah ku qabtay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in Jamaal Cabdi Naasir uu doonayay fursad uu ku qabsado xukunka Masar, asigoo la sheego in uu shirqoolkaas aanba waxba ka jirin. Qaar ka mid ah Ikhwaanka ayaa la daldalay, qaarna xabsiyada ayaa lagu goray. Xaqiiqada in Jamaal Cabdi Naasir uu maleegay ma ahan mid la hubo, laakiin waxa aan kugu soo gudbiyay ayaa ah macluumaad ahaan. Assalaamu calaykum. على وجهه شظايا ندب فيه انتهيت. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت، هي نفسي وهي